رابل waxaan ku dhahay niyo dhala jabta ku istaaga lugta ay xanuunayso niyo dhuxul ruug ee saar macna ama caleen mid ku fudud iska saar macna sax ma ku dhahay saxiiba dhala ibn lugta idhigiisa iyo meesha iska gub ama titan iska tur maxaa kugu dhacay hargab ay haadaayo caani xal isu karso cab waa caafimaad insha Allah عاش maxaa kugu dhacay hargab ay haadaayo hargab biyo kula leesan jibinta isku karkarisid isku huuri waa ka fiicnaanahay insha Allah ilaahay ku caafiyo ha ku dhahay saabo horin baal u soo buuxay xalay niyo toona ku fiican toona cun dadkeena dhakhtarba uma baahna oo iyagaaba dhakhtar isku ah oo wax cusub maaha inaan aragno boqolaal talo oo kala duwan markii aan la kulanno xaalad caafimaad darro horaa loo yiri qof bukow boqoli ku talisay macquul inaad adiguba tahay midka talada bixinaya ama la siinayo midna ogow tusaalooyinkii aan soo qaadanay kaliya waa kuwa aan ku muujinayno sida ay bulshadeena samayso markii ay la soo dirsaan xanuun oo qaarkood waa kuwa caafimaad ahaan fiican oo aan dhib kuu keenayn waliba daawo ah balse waxaa jira xanuuno badan iyo cudur waaweyn oo haddii aad iska qaadato talooyinka lagu soo jeedinayo kuu keeni kara halis iyo dhibaatooyin badan ayna muhiim tahay inaad la xiriirto dhakhtar ama goob caafimaad balse waxaa dhib ah inaad taladaas ka qaadato qof aan aqoonteeda lahayn ama aan garanayn dhibtaada xalkeeda ka waran haddii aan ku dhaho safarku waa raaxo iyo degnaan anigoonan weligay safrin ma iga dhegaysan lahayd warkaas oo ma iga qaadan lahayd isii jawaabta way iska caddahay jawaabtaada oo ma iga yeeli lahayn haddaba sidee caqligal ku tahay inaad qaadato talooyin qofka ku siinaya xitaa aan garanayn waxyaalaha ka dhalan kara allah subxaanahu wa tacaala ayaa hore inoogu sheegay oo ina yiri weydiiya kuwa aqoonta u leh haddii aad tihiin kuwa aan garanayn adigoo talo wanaagsan heli kara marnaba ha qaadan talooyin wax u dhimi kara naftaada iyo caafimaadkaagaba nabadee